wada saaxiibayaal inta badan subaxii waxaan faaqidnaa wargeysyada caalamka waxay qoreen iyo weliba warbaahinada waaweyn oo caalamka saaka warbixino waaweyn ayay sameynayeen ciwaanadoodu ay ka mid tahay inuu baxsaday hogaamiyihii kooxda gooni-goosadka yemen Donald Trump oo cabsi ka muujiyey doorashada soo socoto iyo weliba Sacuudiga u muuqda inuu yemen ku siqaayo oo iskugu soo hari doonaan Sacuudiga iyo Xuutiyiinta maadaama looga awood roonaaday Imaaraadka Carabta dabcan adan ayay gaareen la leeyahay waxaa la leeyahay Sacuudiga iyo xulafada uu taageero oo weliba dowladda caalamku u aqoonsan yahay dalka Yemen ka arrimisay inkastoo ay dibad joog iska tahay ayaa waxay gacanta ku dhigeen magaalada Cadan oo ah magaalo xeebeed muhiim ah isla markaana degada dabcan waxaa muuqata Sacuudiga inuu aad markaan u dardargelinayo maxaan ku yiraahdaa dagaalka Yemen asagoo ka tusaale qaadanayo dhabarjabkii Soomaaliya ka soo gaaray ama aqoonsigii Somaliland Israel siisay oo weliba loo dhexmaray la leeyahay isla markaana uu kaalin weyn ka qaatay dalka Imaaraadka Carabta dabcan warbixinadan ugu horeeyay ayaan ku bilaabi doonaa Donald Trump sida Al Jazeera ay soo xiganaysay iyo warbixintiisa ayaan fiirinaynaa Trump oo boodboodkiisa iyo maxaan ku yiraahdaa faankiisa iyo bararaqdiisa la celin lahaa ayaa hadda waxaad moodaa inuu isa soo dhiibay isla markaana cabsi uu dareemay kadib markuu arkay in Mareykanka iyo cunsuriyiintiisa inta badan laga nacay oo waxba isaga goynba isla markaana waxbaan tahriibinaynay waxbaan qabanaynaadaba ayba tahay kaafar lagu kabanayo oo kaliya warbaahinta Al Jazeera ayaa waxaa qorayso Donald Trump ayaa wuxuu ka cabsanayaa Donald Trump ayaa sheegay in impeachment lagu sameyn doono ama xilka qaadis lagu sameyn doono haddii ay Republicanka ku guuldareystaan doorashooyinka midtermka ah oo aqalada baarlamaanka iyo golaha deegaanada iyo maxaan ku yiraahdaa iyo councilka iyo waxyaabaha doorashada oo soo socoto Trump ka dhigin in Donald Trump xariga uu hayo waxba isugu jirin isla markaana cabsi ay soo wajahday dabcan cabsidiisu waxay u muuqataa inuu wajahayo cawaaqibyo badan isla markaana isku gaar dambiyo badan walow weli uu meel yaallo oo isla markaana galbaaritaankiisa uu socdo waxa la yiraahdaa faylka Epstein file oo qaraxa weyn uu ku xirnaa Donald Trump ayaa u muuqda markaa inuu isdhiibay asagoo weliba shir hoose la yeeshay xisbigiisa Republicanka gaar ahaan xubnaha Republicanka ku matala Congress-ka iyo Senate-ka Donald Trump maalmihii ugu dambeeyay waxaad moodaa inuu faan iyo qababac iyo walax siyaasi caalami ah aanan loogu talagelin inuu ka hadlayo balse hadda waxaad moodaa inuu xoogaa cool down yiri oo isdajiyay isla markaana uu ogaaday meesha laga jiro Republicanka ayaa u muuqday in macnaha hogaaminta Donald Trump la ajligeeda ay waxyaabo badan ku luuskari karaan sanadkan warbaahinta Al Jazeera ayaa waxay tabinaysaa mar kale in Idris al-Subaydi ninka la yiraahdo oo ahaa hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa gooni-goosadka dalka Yemen loo yaqaano STC inuu baxsaday dalka Imaaraadka Carabta asagoo tahriib ku sii maray Somaliland dabcan warbixintani Sacuudiga ayaa laga soo xigtay kadib markii xalay ay shalaba ay si xun u duqeeyeen xarumihii iyo goobihii ay deganayeen iyo xitaa guriyihii ay deganayeen qolyogan gooni-goosadka oo Sacuudiga gabi ahaanba aan lagu soo qaadi karinba kadib markii Imaaraadkana uu tabar beelay oo ciidamadiisa ugu dambeeyay iyo agabkiisa ugu dambeeyay isbuuc ka hor uu kala baxay dalka Yemen asagoo weliba asna sii dhexmarsiiyay Somaliland dabcan ninkani ayaa wuxuu ahaa nin macnaha maxaan ku yiraahdaa inta badanba Somaliland sida Somaliland oo kale u dhaqmaayay oo rabay in qayb ka mid ah koonfurta dalka Yemen ay ka go'do Yemen kale inteeda kale xilli Yemen dagaal ay kala qaybiyeen Xuutiyiinta ay dhinac haystaan isla markaana dhinacyo kale ay kooxo kale oo yaryar oo haystaan ayagana jabhada inuu kala qaybiyay isla markaana uu ka dhigo Yemen ilaa 4 qaybood balse waa u suurageli weysay oo markaani waa uu iska orday Somaliland ayuu sii dhexmaray ayaa la leeyahay warbixinta Al Jazeera ayaa sidaas qoraysa Sacuudiga ayaa laga soo xigtay geeskada Independent ayaa wuxuu soo xiganayaa Sacuudi Carabiya oo ku eedeysay dalka Imaaraadka Carabta inay tahriibinayso xubnihii gooni-goosadka ahaa ee dalka Yemen iyadoo sii dhexmarinaysa Somaliland dabcan warbixintani waxaa laga soo celinayaa official ku dhow Sacuudi Carabiya ama boqortooyada Sacuudi Carabiya weliba qaasatan kuwa u xil saaran inay soo afjaraan qoladan la baxday separatistaha ama gooni-goosadka arrintan waxay muujinaysaa in Imaaraadku gabi ahaanba markaan uu la cabsaday xitaa xulafadiisa New York Times warbixintiisa wuxuu ku bilaabay asaga in Sacuudiga u muuqato inay la wareegeen controlka Yemen isla markaana ay ku hartami doonaan Sacuudi Carabiya iyo Xuutiyiinta oo kaliya gudaha Yemen taasoo uu ku muujinayay in looga tabaronaaday dalka Imaaraadka Carabta Jerusalem Post oo kamid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka Israel rajimka Israel ayaa asaguna sheegay in Donald Trump uu ugu hanjabay طبعا inuu dili doono hogaamiyaha Iran
qamani ayatullah qamani ninka la yidhaha haddii uu joojin waayo ama uu sii wado dilka uu ku wado dadka mudaharadayo. dabcan iiraan ayaantaa mudaharaadyo xoogan ayaa kasoo baxaya ilaa iyo 15 maalin 2 isbuuc ayayna socdaan, taasoo reer galbeedka ama fursad siinaysa israa'iil iyo maraykanka oo ayaantaa madadaansi ku waday dabcan wadanka la yidhahda iiraan. marka dabcan israa'iil waxaad moodaa inay baraara u tahay burburka iiraan, mar walbana ay maraykanka ku riixaysa sidii uga faa'iidaysan lahaa fursaddan. marka wararka ugu dambeeya dabcan waxay tahay hadda oo aadka loo fiiri kara dhanka wararka caalamka, maraykanka iyo israa'iil oo usha ku haya waxaa kasoo baxaya iiraan iyo dabcan sacuudiga oo aad moogdo in aqoonsigii somalilan asagu ayba u ahaydba waa cusub oo u bariyey oo islamarkaana una dareensaneynba waxa uu ka hoos wada imaaraadka, islamarkaana hadda waa cusub ayuu u bariyey. waxaad moodaa inuu isku dayay siduu u xujisan lahaa galafka ama maxaan ku yidhahdaa waxa la yidhahdo baabulmandabka ama gacanka ama diga dhulalka dalalka gacanka laisku yidhahdo dabcan. marka labadaas arrin ayaa ugu muhiimsan, walow hadda aad muuqato in laga adkaadaba mucaaradkii ama gooni goosadkii yemen. dabcan aada umahadsantiin saaxiibayaal, subaxii nahdiyan wacnaado.